wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta inaga mudano ku soo dhawaada warbixin aan ku falanqeyn doono khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland oo cirka isku sii shareeraya marba marka ka dambaysa iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo qaaday talaabooyin sii hurinaya xiisadda u dhaxaysa labada dhinac. marka hore saaxiibayaal intaanan u guda galin warbixinta ku soo biir boggayaga si aad u hesho warar aad u xiiso badan oo dhexdhexaad ah. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa joojisay duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalooyinka Nairobi iyo Kismaayo. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qaaday talaabo ka dhan ah maamul goboleedka Jubbaland xilli ay ka sii darayso xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa labada dhinac. warar soo baxaya ayaa sheegaya in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay hakisay duulimaadyadii tooska ahaa ee u dhaxeeyay magaalooyinka Nairobi iyo Kismaayo sababo la xiriira xiisadda ka sii daraysa. sida wararka hoose ay sheegayaan amarkan ayaa toos ay ula wadaagtay dawladda Soomaaliya shirkadaha diyaaradaha oo la siiyay digniin ah inaysan ka degi karin Kismaayo marka ay ka baxayaan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. xayiraadan lagu soo rogay duulimaadkii Nairobi iyo Kismaayo ayaanan qayb ka ahayn duulimaadyada gudaha ee isku xirayo magaalooyinka Kismaayo iyo Muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen ila lagu kalsoonaan karo. maamulka Jubbaland ayaa horay u qaaday talaabooyin ay ku muujinayaan hawadeeda inay maamulanayso iyada oo amaro dul dhigtay diyaaradaha taga deegaanadeeda oo ugu horeeyaan magaalooyinka Kismaayo iyo Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose. arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhawaan Kenya uu booqasho ku tagay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kaasoo Kenya kala hadlay arrimo ku aadan khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland oo xiriir dawla leh xukuumadda Nairobi. go'aankan lagu joojiyay duulimaadyada Nairobi iyo Kismaayo ayaa ku soo beegmaya ka hor qabashada xafladda caleemasaarka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dib loo doortay 25 bishii la soo dhaafay. ha yeeshee doorashadaasi waxaa si cad u diiday oo sharci darro ku tilmaamay dawladda federaalka Soomaaliya waxayna sii adkaysay khilaafka ka dhaxeeya labada dhinac. isla wararka khilaafka arrimaha Jubbaland iyo dawladda federaalka ayaanu ku guda jirnaaye dhinaca kale tan dawladda federaalka ayaa magaalada Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose ka bilowday inay diiwaangelin u samayso ciidamadii ka soo goostay maamul goboleedka Jubbaland ee ku soo biirayay maalmihii la soo dhaafay. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa bilowday inay diiwaangeliso boqolaal askari oo ka mid ahaa ciidamada Jubbaland ee maalmihii la soo dhaafay ku soo biirayay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose. askartan ku soo biirtay dhanka dawladda federaalka ayaa loo diiwaangelinayaa si ay u helaan xuquuq la mid ah midda ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidankan haatan loo diiwaangelinayo sidii ay u heli lahaayeen xuquuq la mid ah tan ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan laga soo diray magaalada Kismaayo si ay ula dagaalamaan ciidamada ay geysay Raskamboni dawladda Soomaaliya. ha yeeshee saraakiisha hogaaminaysay ciidankaasi ayaa bedelay go'aankoodii ahaa inay weeraraan ciidanka dawladda kuna bedelay inay isku dhiibaan ciidamada dawladda Soomaaliya. waxaan ka mid ahaa saraakiisha ka soo xarootay ciidanka Jubbaland ee loo soo diray inay calankooda xabadeeyaan. waan diidnay go'aankeenna ma aha inaan calanka Soomaaliya xabadeyno. 14 sano ayaan u shaqaynayay Jubbaland wax xuquuq ah ma helin ayuu yiri Qadar Cali Ibrahim oo ka mid ah saraakiisha ciidamadii Jubbaland ka soo goostay hogaaminaysay oo la diiwaangeliyay. talaabadan dawladda Soomaaliya ay ku diiwaangelinayso ciidamadii ka soo goostay Jubbaland ayaa imaanaysa iyadoo dawladda Soomaaliya horay u ballan qaaday abaalmarino darajo ciidan iyo inay helayaan xuquuq askarinimo, waxaana taasi ay sababtay inay kordhaan tirada ciidanka Jubbaland ee ku soo biiraya maalinba maalinta ka dambaysa kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose. daawadayaal halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa wararkii iyo macluumaadka ku soo kordha khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ee fadlan ku soo biir boggayaga ama sii share garey si uu u gaaraan asxaabtaada wararkan xiisaha badan. waad ku mahadsantihiin daawashadiina.